السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آد باي السلام يا أدونك ملك استاك جوتان. وحاني إلي هاي قلب وناكسن. انت قلب أطهي، انت الدهر أطهي الدهر وناكسن، انت هابي أطهي هابي وناكسن، انت سوح أطهي سوح وناكسن. هالكا إيقاد داويني سيدنا وبشار اوفيشيال كانال. فضلا دا كعسب تاي سبسكرايب له لايك صار ونسي قد بي أصحاب تادا أو إذل أدونك ملك استاك جودان. aad baan u mahadsan tahay daawashada aad daawanaysid ee waqtida fiican ay gelinaysid. waxaana ku leeyahay mar kalaba mahadsanid sida wanaagsan ay la taxan tahay ay la socotid mar kastaba ii sudaysid. aad baan ugu mahadsan tahay waana kaa mahad celinayaa waqtida wanaagsan ay gelisay. waxaana ku leeyahay kusoo dhawaa gacmo furan iyo walaaltimo. hana iloobin asxaabtaada inay ugu xirtid si ay u helaan video kasta aan soo saaro. aad baa u mahadsan tahay. waxaana ku leeyahay mar kalaba jimco wanaagsan. waana ka xumahay waa soo geli waayey shalay, waa sababtoo ah shalay xoogaa qabow baa iska jiray. si kalena waa loo mashquulay. sidaas aawadeed waqtida maxaa ii saamaxay maanta inaan soo galo oo waqti kula qaato si waqtiyana u wada qaadano. waqtidan loo saamaxay si aan u soo galo aan waqti kula qaato. maasha allah, ilaahay wuu qadray inaas is aragno aan soo galo ay aragtid. maasha allah. waxaana halkan ka salaamayaa asxaabteeda oo idil adduunka meel kasta ka joodaan. haddii ahaa lahayd asxaabta heer facebook aan ku xiranahay, haddii ahaa lahayd asxaabteeda heer instagram, haddii ahaa lahayd waxaa halkan ka salaamayaa oo kale asxaabteeda aan ku leeyahay waxyar yaraal ahooda. asxaabteeda kale aan ku leeyahay adduunka daafihiisa halkan baa ka salaamayaa. waxaana leeyahay jawi wacan, reeree wacan. maasha allah. aad baan ii salaamayaa adduunka meel kasta ka joogtaan. waxaana ii leeyahay kusoo dhawaada gacmo furan. halka iga daawanaysidna waa bishaar official canal. waana u mahadsan tahay. maanta barnaamijkeena wuxuu ku saabsan yahay durdur media oo caqabo badan kala kulmayso shaqaalaha. waxa sababay iyo meesha ka imaatabo halkan ayaa ku falaqeyn doonaa. sidaa wada ognahay durdur media mudday hawada ku jirta ayakoo gaareen intaasoo subscribe iyo intaasoo daawasho ah intaasoo like ah. haddana waayahan hadda dambe hoos bay usii dhacaysaa. maxaa kalifaas leedahay waxa hoos u ridaya durdur media. hoos kusoo qor fikirkaada saliinka ah si ay u helaan dadka la daawanaya. aad baana u mahadsan tahay. waana falaqeyn doonaa hababka keentay inay burburto durdur media. saas ma u burburin, laakiin waxyaalo badan ayaa lasoo gudboonaaday oo dhib ah. haddii ahaa lahayd ka taditaanka eed ka tadeen rag culculus iyo gabdho culculus ee ka tadeen durdur media. habka keenay waa falaqeyn doonaa iyo sababaha kalifay. sidaa waadadeeno asxaab badana kasoo shaqeysay ismaaciil waa badan yihiin. uzila ka mid ah, maxaa ka mid ah
maxaa lahaa aweesa ka mid ah, maxaa ka mid ah fartuun, maxaa ka mid ah way badan yihiin, asxaab badan ayaa kasoo shaqeysa, nidaamyaa ka mid ah, way badan yihiin, halkaa ma lagu soo koobi karaa. awees madaxii ka mid ah oo u dambeeyey hadda oo laga buriyey, way badan yihiin. durdur media maxaa iska leh Gurfaan oo ku nool waddanka Yurub, asagana uu guddoomiye ah, xubin maxaa waaye xubinta madaxa sare. maxaa ku xido xasatoob oo ku labeeyo oo ah agaasimaha, kala habeeyaha, isku dabaridaha, ra'yi soo jeedinta, waxaasoo dhan iyo sidii wax loo duubi lahaa, habkaasoo dhan jiheeyaha ayaa dhihi karnaa. jiheeyaha ayuu yahay ninka oo fadhiyane, Yurub fadhiyane, oo Gurfaan u taqaaniin. waa ninkii kala wada shaqada, oo haddii dhib ka imaado xaggaas iyo aaladda ninkii farsameyn lahay waayo. saasay tahay waa madaxii sare. Gurfaan inta badan ma siiyo waqti dadka shaqaalaha ah, mana eeda waxay qabtaan iyo sida hamiyooda oo yahay ma fiiriyo. wuxuu fiiriyaa oo kale, wuxuu fiiriyaa bis idaacadda sidii u socon lahayd iyo waxa kusoo kordhi karo iyo siday heerka maanta taagan tahay ee kasii waxaysmi lahayd. taas uu ku fiican yahay, maasha allah, shaqo wanaagsan waaye. laakiin Gurfaan maxaa ku dhihi lahaa haddaa daawanaysid videoban, shaqaalaha ma aha, shaqaalahan waa la buriyaa ee kan kalaa la qabsadaa. ani taasaa ku dhihi lahaa, shaqaalaha iska buri maaha, shaqaalaha iska buri maaha. dadka qalad wuu sameeyaa, qofka bini aadanka ah hadduu khaldomo waa caadi, qalad wuu galaa. qof kasta oo bini aadan ah oo naf ku jirto qalad wuu sameynaa. marka qaladkaas oo sameeyey qofka ma lagu buriyo, shakhsiyadiisana ma lagu dhibaateeyo. anaka waa ku jirnaa media, waa aragnaa qaarar badan oo adduunka ku nool oo soo galaan, xataa dad soo saaraan, kuma sheegtaan waxay soo saareen iyo waxay qabteen. qofka maxaa loo baahan yahay gadaal inuu u laaban oo gadaal ouna fiirinbo. qofka maxaa fiican hortiisa inuu fiiriyo. marka gadaashaada aa fiirisid, horusoc matadaysid. waayo maxaa wixii aa shalay soo dhaaftay aa gadaal ugu laabanaysaa. marka ma fiicno gadaal inaa u laabatid, maxaa fiican hore inaa soo socotid. hore haddaa usii socotidne, marka beri wixii maa doono aa kasii fikiraysaa. marka gadaal haddaa u laabatid, gadaal maxaa ka fikire? wax soo kordhi ma laha, wax soo kordhaya ma laha. waayo maxaa u laabatay saacaddii ayaa dib u celisay. saacadda dib haddii loo celiyo, yaa hore le u soconay soo maaha, gadaal muu soconayso. saacadda hadda u fiiribo, saacadda gadaal u celibo, ee fiiri meesha u soconayso. uma soconayso gadaal, waayo adaa u celisay, adaa awood u sheedatay, awooddaada ugu tagtay, gadaalaa u celisay maho. marka fiiri meesha u soconayso, meesha
kan oo tik 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 eeso meesha u soconayso fiiri gadaal ma u soconay ama hore u soconay jawaabtu waa kasta umaleyna hore u soconay soo maaha hadda saacadda okay noloshan waa sidaas haddaa isdhahdo gadaal fiiri gadaal muu soconaysid intee u soconay hore u soconay waayo ma keenaysid markaas gadaal haddaa dhahda muu ceshami kartid waayo waqtidii waa soo dhaaftay waqti cusubaa gelaysaa ma og tahay sikin kastaba oo ku dhaafo waa wax ku dhaafay ma soo ceshamayso aayadaha lagu sheegaba wax ku dhaafay waa sida ku dhaafeen ma soo ceshamayaan marka maxaa loo baahan yahay toobo marka barnaamijkeeni halkaas uu kusii socon doonaa waxaana ahayd fariintaas aa u dirayay gurfaan oo ka ah madax media maxaa lahaa durdur media teeda kale waxaa usoo laabanayaa xasatoob waa ognahay shaqada meesha ka joogtid iyo shalay meesha ka joogtay waa la soconaa waxaasoo dhan waa ka dhereegsanahay run ahaantii maxaa kusoo maray dad culculus oo la dhihi karo maxay leeyihiin talentiya leeyihiin la dhihi karo wax soo saaray leeyihiin la dhihi karo oo la dhihi karo bulshada way ka qosli karaan la dhihi karo wax cusub ayaa la imaan karaan oo la dhihi karo alelehe way ku habboon yihiin dadkan mediahan waa hadda adow indhahada waa ku aragtay soo maaha dadkaas aa soo sheedayo waqtidan wuxuu saamaxay dadkii aa shala burisay inaa maanta u doonatid subscribe ii saara ii kala kiciya woo iga damay dadkii oo aa haysatiin igu soo shuba cibaankeeda maxaa kalifid shalaa burisa soo maaha shalaa burisa dadkaas way kaa tadeen maasha allah haddana waa aragtay bulshada sida u dhaqan tahay siday u kala socdaan siday wax u haweysanayaan siday usoo gashanayaan video youtube-ka waxaasoo dhan waa la socotaa maho saasay tahay kuma deesanin dadkaas kaama aarsan wax kuma dhihin social media inay soo fadhiisteen kanaya kartaa ma ku dhihin meesheeda ku dhaafeen soo maaha waayo saacaddii aa kasoo hadlay waayo saacaddii dib haddii loo celiyo hore la u soconay dadkaasna dadkaas waayo shalay kuma caynin way kusoo dhaweeyeen ayakoo og qaladkii aa shalay u geysatay ayakoo la socdo sidii aa shalay isku aheedeen iyo wixii aa soo kala marteen marka waxaasoo dhan waxay ku ahaayeen waanay ku ahaayeen waxaana fiican qofka bini aadanka ah inaan ku xadgudbin xaqiisa aana siiso qofka bini aadanka ma aha dhagax aa soo qaadatay oo guriis keensatay oo daawanaysid qofka bini aadanka muxuu leeyahay jiduu leeyahay loola hadaado jidkaas haddaa ka leexato doontu way kula gadoomeen marka maxaa fiican adugu waxaad doonaysaa shakhsiyadaada inaa la safar gashanin inaa wax lagugu dhimin inaa dhib lagu geysan inaa wax lagu dhihin marka maxaa adoo intaasoo dhan og maxaa qofka bini aadanka xaqiisa
u duudsine oo u bahdilaysa waa khalad. taasna waa khalad. teeda kale qofka bini aadanka waaba ku xadgudubtay xaqiisa aa doodisay dhib. taas dhib koowaad waayo. laakiin maxaa xun qofka bini aadanka adoo dhibaataysay adana sii dhibaataysi rabti. wallaahi video aad daawaday jirki iska daayay xataa xaadeeda istaagtay. xaadeeda kor u kacday markaa arkay videogaas. social mediana dad badanaa ku jiro, dad badanaa la joodo, dad badan ayaa ku taxan, qaladka ma galaan. wallaahi runtii ma rabin ina video soo duubo, ma rabin magacaada inaan kusoo qaado videogan, laakiin danta ay ugu kaliftay inaan videogan soo duubo oo kuu sheedo heerka aa gaarsiisan tahay maanta iyo beenta aa ka sheegtay warinimada. warinimada hotareeta qalad weynaa ka gasha, waayo wax kasto aa wadatid haddii ahaa lahayd master haddaa soo qaadata oo kale qalad weynaa ka gasha. maxaa mudan tahay ina lagu soo istaajiyo maxkamad weyn in lagu soo istaajiyo ayaa mudan tahay, waayo waxaa ka gashay qalad warinimada. taasna ma dhigayso qof bini aadan ah inaad ku xadgudubto adoo sheeganayo warinimo. teeda kale tan labaad xeerka u degsan youtube muxuu yahay? waa ogtahay, waa la socotaa waxyaalaha badan oo qaladka ka ah oo ka mamnuuca ah oo maanta ku dhaqmaysid. ani maxaa ku dhihi lahaa taas waanay ku ahayd idaacadda waxaasoo dhan waanay ku ahayd. waa aragtay shalay sidaa u cabaadaysa waxay hal maalin ay kaa xirantay. saa odeed baasboorka maa qalada ma odi, saa u cabaadaysa waa odeed. qofkaama xirin adaa gacantaada isku dhaawacday. marka waxaasoo dhan waanay ku ahayd dadkii aa u tadaysay aa dhehaysa subscribe ii saara ii caawiya kaalaya waxaasoo dhan iyo meelaha ordaysa iyo kanaal kasta aa ka muuqanaysay iyo idaacadda oo kaa xirantay iyo waxaasoo dhan waanay ku ahayd. ma odid. marka maxaa ku dhihi lahaa idaacaddan inaa soo fadhiisto ma rabin, laakiin maxaa igu kalifay wiil maskiin ah oo shalay sidaa rabta ka yeelanaysay oo haddana aa isku dayday inaad shaashadda oo soo hor fadhiisto adoo ku tumanayo xaquuqdiisa. waraa kaalay intee ka soo baxday? intee wax ka soo baratay? intee wax ka soo badan? walaa maxaa qaldan qofkii kusoo fadhiisiiyey oo ciwaankan kuu furay oo ku dhahay meeshan ka xamaalo? aada u qaldan yahay qofka ciwaanka kuu sameeyey iyo qofka kuula taliyaba aada u qaldan yahay, waayo ma istaahjid warinimada iyo heerka ay gaarsiisan tahay. taasna waa taas. shalay dad badan ay kaa tadeen dhib ma leh, laakiin maxaa daran qofka hadday kaa tagto inaad soo hor fadhiisisid
kaamirada aad dhahdid hadda waa ka tadaysaa madaxda maxay soo saareen inaad ka tadaysid anina maxaa saxiixe inaad ka tadaysid qaladkaasaana gashay waa qalad qofka bini aadanka ah haddaa rabtid inaad iska dirtid iska dir gurigiisa u dir wuxuu rabaa ha furto wuxuu rabaa ha samaysto laakiin ha ku xadgudbin hana dhihin hana soo fadhiisan idaacadda ha dhihin qofkaas wuu taday qofkaas saasuu sameeyey waa qalad qofka wuu danaysan karaa qofka xoodaa wax kaloo dareemi karaa qofka wax kastuu isku dayi karaa shalay haddaan kula shaqaynayay waa mahadsan tahay dheh maanta haddaan kuu soo laabanayo waa mahadsan tahay dheh si uu dareemo inaa weli wanaag iga dhexeeya labadiina shalay wanaagkaa isku barateen maanta wanaag inaad ku kala hartiin waayo ana shalay wanaagkaa isku baranay haddana xumaana ku tadinaa wax laga fiican yaha waayo waxaana ku dhihi lahaa ani maxaa ku dhihi lahaa oona ku dhihi lahaa qofkii ku baray idaacadda inaad furtid kaamiro soo gadatid duubtid soo fadhiisisid qof kasta oo bini aadan ah oo maskiin ah oo u baahan caawin in la caawiyo xaquuqdiisa ku tumanaysid qofkaas ayaa khaldan ayaa dhihi lahaa qofka fikradaas kusoo siiyey in idaacadda soo gashid youtube-ka waxaa kale oo qalad ku jira qof kasta oo kuu sameeyey idaacaddan waxaana qalad ah qof kasta oo ku daawanayo oon wax qaladkaada ku sixin oo ku dhaho waa jirtaa ku dhaho qalad ah leh marka wallaahi ma rabin inaa magacaada soo qaado idaacaddana soo fadhiisto otret aniga inta badan ma ku daawado sababa kuu daawan waa la socotaa waayo xaquuqda bini aadanka ayaa qalad ka gashay shalay waa daawaday raaligelinta aa dhiibtay dhibka aa ka gashay awees madaxii aa dhehayso waa khaldoomay video ka horeyna waa daawaday habka ugu tumanaysa oo dareeta ma fiicno qof bini aadana inaad ku tumatid maxaa ku dhihi lahaa hadda qaladkii dhacay waa dhaceen kasoo manaqad ma laha marka maxaa ku dhihi lahaa dadkan hadda kugu soo xirmaayo qaladkaaga gelin soo dhaweey qofka talent ma leeyahay soo dhaweey ha dhihin waxadoona wax shuruudo badan ku xirin soo dhaweey qofka bini aadanka ah shakhsiyadiisa mala sii faragashto xataa maxaa soo duubtay qofka meelow galgalo iyo meelow seexday iyo meeshoo wax ka qaraabtay iyo aa soo duubtay qalad weyn waayo taas ma la rabo marka maxaa ku dhihi lahaa qofka inta yar aa kala fiican tahay ku caawi shalay wax ma ahayn soo maaha qofaa ku soo saaray oo ku dhahay waxaa qaban kartaa meeshaas wax ka qabo marka maxaa loo baahan yahay qofkii shalay ku soo saaray abaalkiisa siday ugu gudi kartaa maxaa ugu gudi kartaa qofkan kale oo caawinta u baahan inaad soo saarto oo dhahdid qofkaanaa soo saaraa marka kaas kii koowaad waa u gudaysaa
adne sumcadaada ha kor u sii baxayso laakiin qoftii haddaa xumayso dhaanaa tahay dhulkaa taalaa ma fiicno qofka bini aadanka ah hadduu kusoo weydiisto caawin u awoodo inaa meeshaas ka caawi kartid ka caawi laakiin haddaan ka caawi karin u sheeg runta meeshaas kaama caawi karo meel kala raadso wax la garta laakiin adoo ka caawi karo ha dhihin saan hana ku xadgudbin hana ku tumanin qofka sidaa u caawi kartid waa loo caawiyaa meeshan social mediaha qof iska leh ma leh qof iska leh ma leh qof kastaba ra'yigiisa kusoo gudbin karaa qof kastaba ra'yigiisa uu kusoo gudbin karaa marka qofka afkiisa ha ku xirin ma soo dhaweey intaasa ugu gudbaynaa fariinta aan u dirayay xasatoob iyo gurufaan oo madax ka ah durdur media intaasaan kusoo koobayaa aad baan ii salaamayaa adduunka meel kastaa ka joogtaan waxaan ii leeyahay kulanka xida waxaan kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo see you next time bye bye